wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada laga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada mid kale oo ka mid a barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta. xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay waxa uu dhegaystayaal ka mid yahay abwaanada safka hore kaga jira hal abuurka suugaanta soomaalida. abwaan xasan ganay oo badda maansadiisu si weyn isu muujisay bilowgii toddobaatanaadkii waxa uu ka sokow hibada uu u leeyahay curinta gabayada iyo maansada uu ka mid yahay oo kale ragga taariikhda ku leh qoridda riwaayadaha kuwaasi oo markii ay masraxa u soo baxeen si aadan loo xiiseeyey islamarkaana la odhan karo qayb waxay ka yihiin tirdhaxaadka taxanaha riwaayadihii laga dhigay dhulka soomaalida. tibaaxda kale ee in wax laga iftiimiyo inooga baahanaysa marka hal abuurkan iyo kuwa kale ee dhiggiisa lasoo hadal qaado waa isagoo had iyo goor si gaara maansada xasan farta loogu gudo in dhexroorkeeda ay ka muuqato hodantinimo xagga dhaqanka iyo hiddaha ah. taxanaha taariikhda hal abuur ee haddaba abwaan xasan ganay iyo dhinacyada uu maansada kaga milicsaday nolosha oo aynu kaga bogan doonno barnaamijkan iyo kuwa kale ee xiga intii aynu ka gaadhno ayaan haddaba doonayaa bal marka hore inaan wax ka ogaanno sidee iyo halkee ayaa taariikhda xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay ay u soo bilaabantay. waad mahadsantahay caliyow. anigu waxaan ku dhashay miyi markayga hore ma garanayo taariikhda. waxaan ku dhashay magaalada la yidhaahdo ulxaar agteeda ilaa dhowr iyo 10 jir waxaan ku gaadhay miyi. waxaan magaalo soo galay 60 iyo 9 ka mid ahayd baan soo galay. shaqo aan qabtay anoo yar hudheel garawla ay igu horreeyey. ka bacdi markii dambe maqaadir oran jiray steeriya iyo baan ka shaqayn jiray. waxaa ku xigay nin cali xasan afro la odhan jiray saasaan jeclahay. muddo berberaan joogaan ka shaqaynayay hudheeladaa ka shaqayn jiray anoo ina yara. muxuu ahaa maalintii uu dhici jiray inqilaabkii hore xasan kayd iyo colkii lugooye iyo ay dhigi jireen 61 waxaan ka shaqaynayay yuyakaan ka shaqaynayay hudheelka yuyakaan ka shaqaynayay. 63 kolkay ahayd allah u naxariistay wadaadii abtiyaa 100 shilin siiyey. wuxuu ku jeeblayso jeeble ka dheer maalkii badaha iyo qaadan jiray muxuu ahaa maqasyada iyo dabeeto kiimaan waxaa maan gelinay niman ilmaadeernahado halkan qayryada horteeda geedka weyn ee qurac ah halkaa fadhiyey oo saabuun yar iyo saabuuna iyo ibada iyo alaaba ku iibiya halkaa la fadhiistay. dabeeto annagoo halkaa iska ladan meeshaa waxaan jiray maqaalku baanku yahay caanaleydaa fadhii jirtay farshaanta lagu samayn jiray. waxaa kaloo lagu qodan haamaha biraha sameeyaa joogi jirtay oo wax ku samayn jirtay. afka horena annagoo bacdlayaal ayaanu ka fadhii jiray. 63 mar la odhan jiray bakayla qalab ayaa lana rabo meesha imika la yidhaahdo xero dhefta dadkii la raray ee halkaa lagu hordejiyey ayaanu hayn. abaara way noqotay magaaladuna way yaray cid baa noo ima weyday waanu kacnay. dabeeto miyi baan yaro tegey. waxaa soo degay nimaan walaanahay maxamed cabdilaahi gaheer la yidhaahdo. wuxuu furtay dukaanka halkan ninka la yidhahdo halkan basaskan cabaaya ka soo baxaan nin raan la yidhahdo mataqaan oo maqaadi awsalawaad la odhan jiray ka horjeeda halkaasana dukaankaasi ayuu dhigo kaasanayn jiray. 65 markay ahayd waan ka tegayoo waxbarashaan u galay geerishkaa waxaa wada haystay ninka la yidhahdo dool odayga dool cabdilaahi xaaji dool iyo nin cabdi biirshe la odhan jiray dhintaa la naxariistay ayaa wada haystay. dabeeto halkaa ilaa 9 bilood 10 bilood baan muxuu ahaa ayaanu ka shaqayn jiray wax ka barasho ugaga jiray. markaa milatariga aad loo jeclaa xoogga dalka la qaad jiro milatariga iyo shicibka aad isku jeclaa. marka ay haddaba dhegaystayaal halkaasi marayso sannaddii 1967 horaanteedii waxa uu abwaan xasan ganay si rasmi ah ugu biiray ciidamadii milatariga ahaa ee dowladdii midowgii Soomaaliya. bal hadda sheekadaas halkaasi haynooga sii ambaqaado. maalin baan iyadoo ay tahay 26 dabaaldega la maraayo ayaa niman kamaadooso allah hiida haya ayaana soo maray annagoo geerish ka tagno meesha taagnay. ka daawan dadkii daawanaya ka mid ah annagoo ka mid ah halkaa taagna joognay. dabeeto dhallinyaradii meesha aanu kala shaqaynaa iyo annagoo joogna waxaan ku yidhi ilaahu milatariga dhig oo weliba caada kamaadoosa ka dhig soo saacad rijaabahay. milatarigii baa la qoray dhiboogii hore markaanu ka baxnay 6 bilood hore
markaanu ka baxnay ayaa 7 bilood markii dhibowga 6 bilood dhammaato ayaa waxaa la siin jiray baashii loonshi isteelada yar halka lagu xidhi jiray hada caalamku ku sawira halkee waa ka gashana waxaanu ka galay Goryacol annagoo 15 ku jira ayaa cali boobay 7 kiiba ahayd bishii February 6 baan noqday ma jeclahay Goryacol annagoo joogna bil 15 ayaa wiiyannoodii Djibouti foodkii loo jiray ayaa markaa diyaar markaasaa la yidhi haddii dagaal dhaco ciidan loo qoro oo niman cali bacaad loo jiro ciidaa ka badan ayaa la qoray dabeetana annagii baa la yidhi nimankana bil 15 cisho joogado iyagaa durba milatarigii la yara gartay xeerada Goryacol dhibooga loo baneeyo burcaana gala nagay haddana sheekh baa nagay dabeeto markaa dhibooga noo dhamaaday ayaa isteelooyinkiina na sii waayay halka aan ka dhex galay way ku soo noqon doonaa isteelooyinkaas waa taariikhu kulli wax badan baa laga faa'iideysanaya raggii wada gashan dhibooga ama Goryacol ha noqoto ama burcaan ha noqoto iyo macallimiintii markaa tababarkeedii siinayay maxaad ka xusi kartaa maxaa ka xusi karaa macallimiintuna way fara badnay raggaa iskuuladka ahaydeen raggii saan iskuuladka ahayn dee horta waxaan nahay niman badan oo 5 kun oo nin oo dhowdhow baan nahay laakiin ragganu sida u wada jaan qaadnay ilaa dhibo ilaa fan aan wada jaan qaadnay waxaa ka mid ahaa allah naxariisay maxamed ismaaciil ka dhintay maalintii dhowta kanaaco waxaa ka mid ahaa nin axmed xirsi libax la odhan jiray axmed xasan xirsi axmed libax la odhan jiray oo isna dhintay waxaa ka mid ahaa axmed baanday axmed cali shire baanday waxaa ka mid ahaa rag fara badan oo dee inta adigu garanayso inta kala gargaran mayside raggaasaa ka mid ahaa dabeeto adigu kamaandoosba markii dambe loo qaatay iyaa lalaga dhigay yaa la siin waayey dabeeto waxaan toonay darajo maydhan waxaan ugu badnaa ciyaal iskuulka dabeeto iyagaa yaqaana ilaa jana ilaa arufra yaa raggii kala bartoshay markaa oday jaamac masaloon jiro halkan sektarkan haystay ayaa lay nimankii waxay tosheen milatarigii nimankii dhibooga ahaa darajo maydhan bay tosheen markaa dabeeto waxaa noo yimid faarax faraskii dee golihii kacaankana ku jiray oo kamaandoos isagu ahaa iyo lixnoo wato oo nin maxeediin la odhan jiray nin aadan meecaad la odhan jiray nin xasan gufays la odhan jiray nin xuseen jiilaan la odhan jiray nin dibjir la odhan jiray rag 6 nin wata markaasuu yidhi 3 safoo dhaadheer gala 3 safayd buu iyo yaa isaa loo taagno saas u hormarayaado kuusha ku gujiyo xaga u kacaya rag badan baa naga qaatay dabeetana halkaa 7 bilood kale oo 6 bilood oo kale ayaanu kabadas buuraha sheeg garaacayn kabacdi waa markaan ka baxnay Goryacol baa lagu celiyay markuu kacaanku dhashay nimankii uu kacaankii loo jeeday markay u dhacay 69kii 70kii baan uruursanay raggaan ku sheegay kana cali axmed libaaxle baanta ilahe rag kaloo nin kale maxamuud isfaldin la orjay laho ayaan suursan oo riwaadan sameeyay laawna xariistay marxuumkii kana oo maalin dhageysanay 68kii buu ku sheegay ma yahay markii 70kii baa ahayd riwaayada oran jiray laanta sare iyo la aragtay la gamo ogtahay ayaanu dhignay ayaanu sameeyay oo qalin daaraala ah oo waxba ka xusuusnay midnaba ka xusuusnay ka bacdi fankana markaas noogu horeysay dhaxgalkiisa 71kii markay ahayd ayaa aniga iyo nin yaro kale oo colka iyaga ahaa kamaandoos ahaa waxaa noo soo diray laan qodan bigilka u afuufta ciidamada markay amba faylayaan amba dagaal jiro ayaa muxuu ahaa noo soo diray markaanu halkan nimada xoogaa joognay ayaa aniga yidhaahdeen ninkan waanu haysanayno inaga noqon maayo waxay nin kale soo dirta dabeeta halkanna waxaanu ka bilaabnay kooxdii la odhan jiray jalaal daawud nin la odhan jiray maxamuud duwane muuse cali wajiyar ninkii cabdi cali weyd la odhan jiray oo ninkii magaca jalaal daawud bixiyeyba ah olka iyagii hore nin xujo la odhan jiray isna dhintay dad badan oo caynkaas heer iyo xumayn la yidhaahdo oo imaka isagu tabliiqi noqday qol caynkaasaanu ahayn markaana 74kii markay ahayd waxaan sameeyey riwaayadii loo jeeda dabjacayl kaliwa waa tahay 1974kii ayaa sida xasan xaaji cabdilaahi xasan gari uu xusay uu curiyey amaba uu hal abuuray riwaayadii caanka ahayd ee la odhan jiray dabjacayl kaliwa hase ahaatee inta aynaan hore ugu soo socon waxaan jeclahay bil xasan inuu wax inooga iftiimiyo hal abuurkiisu iyo halka uu ka soo jeedo maxaan su'aasha u qaadanaya mahidaadu leedahay miyaa sidaasaan u qaadanaya kolley abbahay wuu gabi jiray abbahay
wuu gebi jiray awowgeyna wuu gebi jiray rag badanoo walaannahayna way gabiyaan marka waxaan qabaa uun inay tahay waxidda ah marka ilaa waqtiba da'dibaad ku darantay inaad wax oran anigu nimaan walaannahada iga waaweyn ayaa isku gabi jiray anoo yaro maqashada oo aan baadhig raacay isku gabi jiray kuwaas anaguna iskala darsan jiray oo ugu gabi jiray oo kolba qof mid raaci jiray dhinaca saar jiray oo mid marka hadda waxaan imika waxba macno lahayn ayaan odhan jiray marka waanayn ilaa waagaaba waan iska yara danaysanaa inaan wax haddaan isku dayo isku gelgeyn karo caynkaas hadila waqtigaas marka 1904 kibana u imanaynaa oo xilliga aad culustay riwaayadaas loo jeedo jacayl kari waa oo si aada u noqotay riwaayadaha dhigan hogolada riwaayadaas ku caanka marka bal arinta noo sii faahfaahin riwaayadaasi kolley riwaayadii ugu horreysayna way ahayd riwaayadaasi haddaba dhegeystayaal uu tilmaamay inay ahayd riwaayadii ugu horreysay ee uu curiyo abwaan xasan ganay sanadii 1974 iyo qaybaha kale ee taxanaha taariikhdaba waxaaba aad ka bogan doontaan barnaamijyada soo socda ee fanka iyo suugaanta hase ahaatee qaybtan intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa intiinu barnaamijkan lamida ku kulmi doonana waa farsamadii axmed cismaan batuul iyo anigoo idinleh nabadgelyo